nabadda marka barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay sidee looga bixi karaa ama aynu uga bixi karnaa dhibaatada maanta jirta marka ugu horeysa waxaa jira dhibaatadan sabab baa keentay fara badan oo siyaabo kala duwan oo waqti dheer soo qaadatay dhibaatadaas faraha badan oo muddada soo socotay maxay ku timi maxay ahayd Dr. Saciid Cali Shire mudane ka tirsan dowladda federaalka meel gaarka ee Soomaaliya kusoo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ugu horeyn aan cudurdaarka bixiyo kelmadda waa doctor jaamacado badan waxaa ka dhigtay taytalo badanna buugayga dhabarkiisa waa ku yaalaan laakiin doctora kuma jirto marka qofku wuxuusan ahayn ma raadiyo mahadnaq ka gadaal arrinta labaad oo iyadana aan hordhac ka dhigay cudurdaarna ka bixinayo inkastoo aan ka tirsanahay baarlamaanka dowladda ku-meel gaarka ah misena halkaan kuma joogo inaan ku hadlo magaca dowladda su-aasha la weydiiyey oo ah mawduucaan baaritaano badan ku sameeyey waxna ka qoray ayuun baan ilahay intuu iga waafajiyo aan uga hadlayaa uma joogo meesha inaan difaaco ama aan promote gareeyo dowladda midna ma joogo marka iyadana haddii aan mararka qaarkood ka hor imaado iyaga laftigooda waxaan rajeynayaa inay hordhac uga filan tahay markii la weydiiyey inaan wax ka idhaahdo asbaabta sidee lagu dhalin karaa nabad sidee lagu keeni karaa waxay xusuusisay 16 sano ka hor 93 ayaa waxaan arday ka ahaa macad ku yaala Norway oo lagu daraasiyay cilmi baarista nabadda Brio la yiraahdo Peace Research Institute oo ku jira macaahidan lagu darso nabadda kuwa ugu waaweyn xilligaas aniga dhibka Soomaaliya ugu dheeray 93 oo markaa 3 sano meelahaas kaliya ay dhibka Soomaaliya taagneen markaas aan baad u goobiyay maxaa keenay dhibka Soomaaliya si lagu xaliyo marka 16 sano ka bacdi ayaa waxaa la yidhi maanta waxaa ka hadashaa maxaa keenay dhibka Soomaaliya sida looga bixi karaa marka waxay noqotay bal research waaga aan publish gareeyay inaan horta dib u review gareeyo nasiib darro asbaabihii waaga muuqday oo keenayay dhibka Soomaaliya qaar badan oo kamid ah meesha waa ka baxeen qaarkoodna iyaga iyo faktarro kale ayaa intay isku milmeen waxay yeesheen humaag cusub oo ka duwankii hore qaarkoodna waxaa ku dhacay tadawur bay sameeyeen oo sidii maalinba wax ugu darsameeyeen wax kale noqdeen qaar badan oo cusubna ku soo siyaadeen marka anigu waxaan jeclahay inaan hal faktor oo badanaa aan isleeyahay waa faktor markii horena keenay dhibka Soomaaliya aadna loo hilmaamo marar badan inaan awoodda saaro dabcan faktarro kalena waxaa ka tilmaami doonaa anigu waxaan arkaa faktorka keenay dhibka Soomaaliya ilaa haddana ay dhibka Soomaaliya la deglaadahay waa faktor hoggaan xun mararka qaarkood waxaa la isweydiiyaa dhibka Soomaaliya waxay la soo bilaabatay dagaalka sokeeye waxaa la isweydiiyaa waxay bilaabatay 88 ma 69 bay la soo bilaabatay waxay la soo bilaabatay dowladdii shibilka ahayd mudaakhiliyadii waxaad arkaysaa dhibka Soomaaliya maaha dhib bilaabatay 91 waa wixii baa qarxay laakiin waxay ahayd dhib soo jiitamaysay oo maalinba kasii daraysay waxaan kaloo idiin sheegayaa dhibta hoggaanka xun maadaama shirka ay dhalinyaro abaabushay oo kaga farxinaya hoggaanka xun Soomaalida asal ma leh markaan buuggan qorayay safar dheer baan galay rag badan oo mu'arikhiin oo Soomaaliya raadiyay waxaad arkaysaa markaad dadka la sheekaysatid in Soomaalidu ay tahay ummad leh xadaarad fac weyn ilbaxnimo fac weyn ragga qaarkood oo jaamac magaciisa oo kale wuxuu ii sheegay inuu hayo taariikhda Soomaaliya ilaa 8 sano inuu hayo ayuu sheegay waxay kaaga sheekeynayaan xilli Soomaalidu ay ahayd xidigta ka muuqata adduunka ayay kaaga sheekeynayaan bal waxyaabahoodii intay ugu bateen oo aan qaadan kari waayey ayaa waxay noqotay in aan signalada ay siiyeen qaarkood dabagalo oo waxyaabo badan aan soo xaqiijiyo nin kale oo isna mu'arikhood degan Denmark oo la dhaho Khalid Cali Guul warsame isna waxay noqotay inaan mar u xeraysto oo cabaar la soo joogo marka dhalinyarada waxaan u sheegayaa hoggaankan xun ee maanta dalkeennii dartiisu la gubanayo dhibaatadan horseeday ma aha midaynu asal u leenahay waa midaynu ku cusub Soomaalida waa ummad asal leh taariikhi leh hogaamiyaal fiican lahaan jirtay marka buuggan chapter baan ku daray la yiraahdo baadigoob
oo ka sheekeynaya hogaamiyaasha Soomaaliya islaamka hortiis hogaamiyaasha Soomaaliya zamankii islaamka hogaamiyaasha Soomaaliya xilligii gumaysiga marka hogaanka xun waxaa la isku waafaqsan yahay inuu la soo bilaabmay daakhiliyadii maalinba maalinta ka dambaysana uu kasii darayay ilaa uu soo gaaray heer maanta meel aynu wax ka qaban aynu garan la'nahay heer dadka qaarkiis isweydiiyeen qarnabadii Soomaaliya oo la leeyahay war Soomaaliya ma sii jiri doontaa ma baabi'i doontaa waxaan aad uga naxay kelimado gabay uu leeyahay nin la yidhahdo Maxamed Warsame ayaa aad qalbigayga u dhibay dhawaantii markaan arkay wuxuu leeyahay qarnigoo 20 miyaan qaran isweydiiyey ummadka kale meeshay ku mashquulsan yihiin horumar iyo Mars iyo Jupiter iyo aadana development technology innagu waxaanu ka sheekeynaynaa ma jiri doonaa ma lana qabsan doonaa dadku ma dhiman doonaan yani basic questions oo bini'aadamku ka soo gudbay casrigii laga soo gudbay casri hore ayaynu ku mashquulsanahay waana dhawaantii wax murugo badan weeye hogaanka xumay marka sidii uu ugu dhacay lisan iyo rifan oo marka dambe uga soo darayay ayuu wuxuuna gaarsiiyey heer ragga qaarkiis Maxamed Daahir Afrax oo kale buuggiisa daldad waaye waxaan rajeynayaa in dad badan akhriyeen uu ku tilmaamay Soomaalida gablan ayuu ku tilmaamay gablan waxaa laga yaabaa dhalinyarada qaarkood inaysan aqoon gablan waxaa la yidhaahdaa qofku markuusan carruur lahayn weliba wiilal markuusan lahayn mararka qaarkoodna qofka isagoo carruur leh wiilal leh ayaa waxaa la yidhaahdaa wiilashu markay xumaadaan kuwan waxaa dhaamay inuu gablan yahay marka Soomaalida wuxuu ku tilmaamay ummad ku guul daraysatay inay dhasho hogaamiyayaal ka saar dhibtaan hogaamiyayaal dhibtaan ka saar guul marka wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gablan horteedna raggu ka mid yahay eebaha u naxariistay Cismaan Yuusuf Kennedy ayaa wuxuu ku tilmaamay Soomaalida hogaankeedu inuu yahay habow 1956 uu tiriyay waxaad arkaysaa yani hogaanka xun markaan leeyahay wuxuu la soo bilaabay xilli hore 1956 ayuu wuxuu leeyahay raggii madaxda ka xumaato waa marin habaabaye kuwii muqadimada looga dhigay waa manfac raac 1956 ayuu hogaanka Soomaaliya wuxuu ku tilmaamay habow inay ahaayeen waxaad arkaysaa eebaha u naxariistay ninkii la dhihi jiray Xajaad Afqallo isaguna 1907 markuu ka hadlayay inuu lahaa kuwii doorashada noo galaa wuxuu leeyahay mas-uuliyaddu waa adagtaho waa amuur culuse ardaal iyo nimaan qaadi karin looma aamino ayuu leeyahay Seeyo oo aan isleeyahay ragga badiis waa yaqaanaan Cali Seeyo laga yaabo rag badan ay ka arki jireen TV-ga raad oo dhawaantii la sugaan aad u macaan iyo xikmad fara badan wuxuu leeyahay xikmadan aad u jeclaystay ayuu wuxuu leeyahay qoys hooyo xun iyo qoon hogaan xun midna ma hanqaado qoys hooyo xun iyo qoon hogaan xun marka hanqaad la'aanta iyo dhibta ay haysataa oo keentay marka horena dhibtaan Soomaaliya halaageeda bilowga u ahayd maantana xadkaa gaarsiisay waa hogaan xun hogaanka xunna waxaanu nidhi Soomaalida asal uma laha marka aynu isweydiinay hogaanka xun see looga bixi karaa hogaanka xun see looga anigu waxaan qabaa dhibta Soomaaliya waxaa aabay hooyo u hogaan xun ilaa hogaanka xun xal loo helana waxaan wala isdaalinaya oo maalin walba waxay imaanaysaa mid aan lagu aamini karin qaran in waxay aaminaysaa lagu aamino waxuusan qaadi karin in lagu aamino marka dhibta ugu badan ee ku dhacday waxay tahay waxayna ka lumay wixii mastaradii kriteeriyadii cabirkii lagu xubin jiray hogaanka ayaana ka lumay inteena badan waxaynu wadanaa cabir khaldan baa wadanaa ilaa cabirka la saxana dugsiyaday ahaanaysaa marka bal cabirka aan waxyaalo yaran idinla wadaago umamkii hore maxay ku xiran jireen hogaamiyaasha ummadii hore ilaa inagu adduunka uguma horeyno ummadii hore maxay ku xiran jireen hogaamiyaasha waxaa arkaysaa shiinayskii hore buugga la dhaho The Art of War oo qoray Sun Tzu waa 1500 ka hor dhalashadii Nabi Ciise marka wuxuu ka sheekeynayaa shiinayskii hore inay 3 factor ku xiran jireen hogaamiyaasha garaad yani caqli inuu qofku leeyahay cognitive kalsooni self confidence inuu leeyahay iyo geesinimo ayay ku xiran jireen Greekii hore waxaa laga yaabaa Socrates iyo ardaygiisii Plato buugga The Republic oo aan rajeynayo raggan hore akhriyaan wuxuu soo ka sheekeynayaa aqoon iyo waayo aragnimo ayaa lagu xiran jiray Greek isagu wuxuu leeyahay maba aha dadka qofka ugu magaca dheer inuu noqdo hogaamiye inuu noqdo qofka ugu aqoonta badan ugu waayo aragnimada badan inuu noqdo waayo wuxuu ka sheekeynayaa stateku inuu yahay institution complex qof kasta uusan hogaamin karin inuu yahay uu ka sheekeynaya islaamka diinteena xaniifka oo aad uga hadashay muhiimad weyn saartay hogaanka waxaad arkaysaa kitaabka uu qoray Sheekh Ibn Khaldun al-Muqaddima markuu ka sheekeeyo kitaab al-Ibar oo kitaab runtii hadda luqado badan lagu turjumay ayna mudan tahay qofkan hore u ahaa
إنه أخريه وحكش كينيا وحكش كينيا سيفوين كالوحوش هجامياشا وكان وجوه الرسالة عدالة كتاب كعدالة دي بقول لابطو وكذا هذليا أصلاً كان إن أي بربران الحنينوين كو أم وضمد أم بقرتوين ما كان بربر بماذا أيوة كذا كينيا ولا بقرا سنقار حلا بقرا مركب حيابها أولية أساس كوحكي البحنين بربران وهجام حمحوني هجام مركب هجام كسر كر كام بدادين كر مركب هوري أما هذي بربران دبوا صنولين كر ومن عدالة عادل أمانه سمفل طبقات بل من أوفين حشنا قفوا هاي علم جاي بس كقول ماذا قف كفوا حمانته أي عش حمد أي وحن أردن أنت سكوت كوبي من خدون كتاب كتاب مقدمة وكشيء كيليه دراسة الله تحرقه ومركز ضمن بوك دبانتي أنا يسبب الشيء ولا هو ليرشيب تشالنجي ولا بنين أو كوسس يبص نريد هان القرآن لو يتمون وطن أي دراسة حيكسر ريان ديتا أضفر قد إلا تطلع تنشون كل أطفال يسوي رئيسين سؤال شيء ويديني أنا واحد هيد محاق حولة الهجامية وحق صوب بحي صدح فاكتر وحقوه رئيس داعدنم ما يا رئيس وضمن ذكر كود 99.7% واحد ينقص عن داعدهين هجان يعني ما بضبط قال داعدنم وهي أصلا كدقين وحيكون حكي أقوان حيكون قدام بيسين هلال فيشن نكون جميع ومية هن أمضوا ماشي قصة قطو كل كم وصل ننتهي مامك أي قدام بيسين هذا كيس عدد كان داعدنم وفكتر مهم إسلامك أقوانتو حنكون شرنا ما أنت عصر حلي وحنكون شرنا عصر أقوانات knowledge era economic business كي واحد كستو حلقة شكلية knowledge base وحلي لغوك هرمي أقوان وحلي أدونك سراع حب من كدحي وحامرك فهمي كرا يعني قف فهمي كرا سراع أدونك كدحي يماشى الله مري يماشى الله صعده ومنه قال كرا لكن أقومت وفكرة أساسية رجع الصومالي ذا وحكى قري ليدرشيب كاي سفين كلو حشة وحنا مش على يستي بيور وقري حسن على ميرا لقد يكون شن وكل شيء يسوي السفاء إن لقد يقول لك هو جامية نقرس وأنا هو جامية أنا هذين إنه وأن لنا الحصول علم كان نقد الصومالية وحكوا كذي وضني نمو طبعا وضني هنا هو جامية الغمرك وضني نمو يكون كذي وحكوا حكي شيء تعليم يكون حكي أو سووا في لقف برشيس أصلا ليفل كان عدد هين institution هجامية ما بقى هم الحوينة يا prime minister يا وزير يفكش institution هاد الدولة دي حلقة نقول هجامي كراسية أيو قدري هفنان أيو قدري كرتي بدني أيو قدري بسيل السياسة أيو قدر بيسي عشان تاس أيو ياري سمتر عن سمتر جورنال كان بلدان لبدي يكون يا لبدي قد كيسوب حي أحمد سمتر يا عبد سمتر قرال دير أي قسميين إلهي ونحريستي هذا العدة يا عبد ساحة حسين صدح يوم حيسوقات الفكتر ويديه نيجو جاميها نقونية ولا بهذا هلال يعني فيشن أقول معمول قيم values صدح راس بيجوا السوقات مركز كان ذو الدين يعني مكحول الناس فوي كهو جامية كو هذا شغل مكحولني كو يكسرني مكحولني هذا سمينه كوشة ترى إن مكحول إنه جامياش إيمان دون المستقبل كسفوي كاس وحليه هاي مسترد كذو المستردها أنت إنه وضنه لبتك بحمين حنوك وقصي بغنية بربرك يلاب وقصي بغنية حلاق وقصي بغنية دولة ده هذا اللي يبغى حريرنا لو دولة بحمل سوتشر قفك إنسان كان فاضل الشيء لا يقديه قفك حسن يسكو مسيح لو هذا يشيء قدرم وكباسيتي integrity حلقة يا أبا توثق وزير الرئيس هو اللي يقول بشقي ودن كان أعيش لما تنكسر جبت على سكول فلوسي أو بربوري أو مصائبتي هلاقة ما هقف كل شيء وزير كوب بلا وحلميده ورير واي وتورير واي واحد لو ده هذا ينقف فنا ويحصل هاي الراديو معها تذكر قف وحصل قاعد كان يكون كسر الماء مش مرك أنا وحلاي هاي لبت الصومالية وفكرت عن سليه هاي بدنا والله المامي يعني أول ما بدت ساكري كدنا مهمة ليها لما سوى فكرك هو جامنته فكر ذا كلا وهذا هو التاج اللي بدأ الصومالية ولو هانتي مصيبة قصة بيت إيكويشن في الصومالية وأنا كتبن وولد عبد الله من كان أرجع ترى مدبي يلقوا الصومالي ولد عبد الله كل شيء سووا حلوا أركان إنستيوشن بدنا يدوروا بدنا إنه هاي نبرموت كرينا يا نمط الصومالي لكنه حرام كاس دربي قوين هرت هذا النمط الصومالي والله كل ولد عبد الله تقول مع كلكم أنا فيل وذا دنبيدي إثيوبيا هي بس الصومالي أنت جبتي وحي أي كقرين هيدا أمنستي إنترناشنال وينا ووش وحنا كبوط إنسان كودور وحنا اللي هي سنة هاي الوقت في
adduunku ila meelo hore kusoo shaqeeyay wixii ugu horreeyay oo ka sadafgariyay waxay maxkamado ayuu ka sadafgariyay ninkaan meelo kusoo shaqeeyay miyaysan ahayn inaad waxaan rabbi aad sii wadid dhaqankii ficnaa lagu yaqaano maxkamad halkaana hadda aad sadafgaraysid si loola xisaabtamo dadkii dunuubta kale waayo haddii uu jiro cabsi haddii jirto maxkamad iyo baqdin ay jirto xataa kuwa dambe ma dhiiranayaan inay dambi sameeyaan haddii ogyihiin kuwii hore in lala xisaabtamo wuxuu yidhi it will never happen marka mararka qaarkood anigu waxaan u fasirtay shaqada ugu weyn uu hayaba waa inuu maryo xariira kor ka saaro oo uu qariyo dunuubtii Ethiopia iyo dowladaha shisheeyaha ka galeen Soomaaliya simbalis marka faktorka labaad oo ilaa laga hor dhaqaajiyo Soomaaliya aysan xal yeelanayn waa walad Cabdalla hayga raalli ahaadeen walaalahayga oo ka socda mucaaradka waxaan iyagana hadda aan leeyahay nabad waxa hortaagan mucaaradku waxa weeye ceebtooda waxay noqon waayeen institutionno hadaf siyaasadeed iyo mabda qeexan leh ayay noqon waayeen waa la kulmay xabarintaa joogay qaar badan oo kamid ah rag badan oo naqaan waa la kulmay waxay kaga dhegan tahay oo keliya shariifku markuu khiyaamay war waxaan umad baaba'ay sahlaad baa socda tanaasub maxaa qaarkood waxaan weydiiyey su-aashii ahayd maxaa iska daa inuu khiyaameeyey laakiin political maxaa different samayn lahaydeen maanta maxay tahay siyaasadaha aad ku diidantiin oo hadda hadeen ma jirto wax ajenda siyaasadeeda ma jirto wax hadaf siyaasadeeda ma jirto ajenda qeexan mabda cad ma jiro iyadana mucaarad aan mabda iyo ajenda siyaasadeed lahayn isaguna wuxuu ka mid noqday waxyaaba hortaagan aan isleeyahay nabadda Soomaaliya hortaagaya laakiin anay waxaasoo dhan waxa ay gulo weyn oo aan leeyahay aabbana wuu ahaa iyo hooyo burbuq ku yimi Soomaaliya haddana wuu hortaagan yahay nabadda Soomaaliya oo hoggaan xun ayaan leeyahay marka intaasaan kusoo gabagabeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام aad buu mahadsan yahay Saciid Cali Shireen دكتور سعيد علي شريف ما دكتور زادي بي اتش دي waa mudane ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka gaarka ee Soomaaliya waxaan jecelnahay dhibaatadii waxbaan ka taabanay inaan bal mar labaad aan codsano maanta muhiimadeenu waxa weeye oo aan shirkan u qabanay haddii aynu sii kala taagtaagnaano qaanadaha aynu ku kala jirno xal gaari mayno waxaa burburayaa waa hanti shakhsiyaad Soomaaliyeed ay leeyihiin dantii ummadda Soomaaliyeed shacbigii rayidka ahaa ee maatida ahaa marka sidee baynu marxaladan maanta in hortaala uga gudbi karnaa inagoo aan waxa aan jecelnahay uun ku ekaanaynin waayo aniga marka la weydiiyo waxbaan jeclaa abuurkayga ku jira laakiin xal ma gaari karo taas kuma gaari karo waa inaan marka dinta meelaha kaleeto oo mushaakilaadku uu maartay qaybta ka ah sideen isugu iman karnaa iyo inaan bal wax uun maartay insha Allah waxaan jecelahay inaan u yeero igana raalli ahaada barnaamijku aad buu dheer yahay qaybo fara badan baan ka hadli doonaa waxyaabo badan baan ka faalloon doonaa muxuu xalku yahay maxaa tan inoo xiga waxaan jecelahay Sheekh Bashiir wakiilka isbaahaysiga dib u xareynta Soomaaliyeed inuu wax ka yiraahdo waxay noo xigi doonaa Sheekh Xasan Mahdi oo magaalada Muqdisho isagana aanu ka soo xiri doono oo aanu xalku muxuu yahay kadib aanu gorfeyno dabadeedna aanu helno bal wax aynu isku afkarnaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo aad waxaan uga cudur daaranaynaa weli dowladda ku meel gaarka ah xubnihi aan ka rajaynaynay madama oo ragii aan filaynay wax badan baa muuqda inay maqan yihiin sunna wal jamaaca wakiiladeedii iyadana sidoo kaleeto raggii aanu caasunay waanu filaynay waxaan u malaynayaa dabcan inay iyaguna saacadaha dambe soo gaari doonaan iyagana ma hayno marka Sheekh Bashiir falyatafadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله لما سوبيي حفلة إن ليس أركتي دافتو إن laga soo baxo qofku guryaha uu ku jiro iyo telefoonada oo si public la isugu yimaado xafladan qiimaha badan oo ay ummadda Soomaaliyeed u qabteen aadan ugu mahadcelinaa khaasatan Soomaaliya Center waxaan kaloo mahad khaasa u celiyaa dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladan في عين يعني سروقات
intaas ka bacdi bismi illaahi raxmaan raxiim walaalkii arrinta uu ka dhawaajiyo ah oo uu iigu wacay waxaan ku bilaabanaa arrinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka sidiisaba bini aadanka ah khaasatan maxaan ku waraa muslimka ah inuu yahay saadiqu lkalima laa takdib abadan yani qofku inuu yahay in kelimadda uu ka hadlaa mar kasta ay tahay shay oo ah run ah oo aan marna ka been sheegayn xaaladda waddanka ee ka jirta waaqaca uu ku nool yahay waxaan rabaa walaalkay iigu horreeyey uu sheegay liidar xumada soomaali haysata kelimaddaas waxaan rabaa inaan idhaahdo dhibaatada soomaaliyana haysata waxa ay tahay qofka oo aan hal shaati ugu jirin taas waxaan u jeedaa hadday tahay mabaadi oo qofku aaminsan yahay oo lagu soo hagaago in ay jirto in lagu yaqaano hadduu yahay qof mabda islaamiya ka turjumaya inuu yahay qofkii mabda islaamiga meeshiisii loogu imaanayo hadduu u yahay mid oo ka turjumaya dimuqraadiya calmaaniyana uu yahay mid meeshiisii loogu imaanayo hadduu yahay mid qabiil maxaan ku rahdaa kasoo jeeda oo qabiil uu yahay mid booskiisu ah in meeshiisii loogu yimaado taas marka waxaan u jeedaa dhibaatada annaka soomaalina haysataa waxaa weeyaan dhowr shaatiyaa noo gashan oo midba mar aan rabno inaan gashano aniga marka waxaan is leeyahay dhibaatada noogu weyn inay taas tahay midda labaad oo aan rabo inaan ka dhawaajiyo waxa ay tahay waxyaalaha aan rabno in aan maxaanku rahdaa aan dhalino waxa ay tahay noloshaan annaku aan ku noolnahay in aan nidaamkaas oo ah mid maxaankuna aan raacayno aanan ku kalsoonnahay inuu xallin karo mushkiladeenna inuu yahay waxna hor yaalla anigu marka waxaan is leeyahay nidaamka keliya oo soomaali xal u ah xallina kara inuu yahay islaamka uu yahay ee uusan ahayn mabaadi kala duwan taasna waxaa caddaynaysa in ay tahay yani soo jireenkii soomaaliya mabaadida ay kusoo dhaqantay oo kala duwan in weli afkaarta saa u kala duwan ay shacabka ay ku jirto macnaheeduna aysan ahayn in maxaanku waraa mabda'a qofka uu aaminsan yahay iyo maxaanku warahdaa waaqac uu ka turjumaayo inay isleeyihiin iyo in kale xataa aysan u kala caddayn ani marka waxaan is leeyahay shacabka soomaaliyeed oo ah shacab muslim ah oo ah shacab isku dhaqana isku luuqad ah waxa keliya ay isku fahmi karaana ay tahay intaas ay tahay dhaqankoodu uu yahay dhaqan islaamo waxay ila tahay mabda'a keliya laisugu keeni karaa inuu yahay islaam waqti dhawaa la ii sheegay halkan laakiin waxaan rabaa 3 nuqdood oo muhima inaan kusoo koobo oo ah mushkiladahana haysta soomaali ahaan maxay tahay waxaana haysta waxay tahay mushkilad oo ah dawlad waxa kaloona haysta waxay tahay mushkilad oo ah qoyska ama maxaanku rahdaa usrada mushkilada kaloona haysta waa maxay dhaqaalaha waxaan rabaa 3daas qayboodaan rabaa inaan mushkiladaha aan kusoo koobo ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah waxaan rabaa dawladnimada haysataahi in ay tahay mid noo dhaxaysa annaka soomaali haddii aan nahay mabaadi kasta aan kala aaminsanaano hadduu yahay dimuqraadi ha aaminsanaado hadduu yahay islaami ha aaminsanaado hadduu yahay aaminsanaado culture kale wuxuu raba ha ahaadee in ayna kulmiso nation soomaali la yara oo ay ka dhaxayso talada dalku ay ka dhaxaysa iyo dadku ee aysan noqon inta hadda taariikhda aan soo baranay qof kastaahi interestkiisa marka uu helo inuu hore ula dhaqaajiyo ani marka waxay tahay mushkiladdu dawladdu waxa weeyaan shacabka soomaaliyeed ee ma aha yani afraadda markaa intii loo doorto shacabka inay u adeegaan annaka marka waxaa nagu dhacay waxay tahay cagsi inaan dawladda aanu aamino oo ah shaqaalihii shacabka u doortay inay u shaqeeyaan inay yihiin dawladdii ayse dawladdu ahayn shacabka ani marka waxaan is leeyahay waxaa looga gudbi karaa dawladnimada soomaaliya qaybaha kala duwan ee bulshada qaybaha kala duwan ee siyaasadda qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha waddanka rangareeya intaas oo dhan waxay uga gudbi karaan arrin ayaga ka dhaxayso oo ay isaga yimaadaan oo public ah ee aan lagu geyn maaragtay guriga hoostiisa arrinta kale oo ah mushkilada kale oo aan is leeyahay waa ugu xoog badan tahay waxaa weeyaan usarka ama qoyska waxaan is leeyahay qoyska soomaaliyeed qoys hal dhaqan leh maxaan ku rahdaa hal diin leh hal luuqad leh in uu yahay qoyska soomaaliyeed oo aanan ku kala duwanayn dhaqan ahaan aanan ku kala duwanayn
islaam ahaanna aana ku kala duwan oo aan diin ahaanna aana ku kala duwanayn ana hal qoys oo hal meel ka soo jeeda qoyska Soomaaliga waxaa hogaamiya gabadha Soomaaliyeed hogaamisa gabadha Soomaaliyeed hogaamisana waxay ka soo jeedaa hal dhaqan ay ka soo jeedaa hal culture ay ka soo jeedaa marka waxaan rabnaa qoyska Soomaaliga ah in lagu hayo laba arrimood waxaan ahayn lagu hayo karo qoyska Soomaaliyeed ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال درجة إلهي سبحانه وتعالى مركو كهلا يقويسك أو أبيه هويدي إن قويسك أي هين قويس من أو لوضع أي أسميهن أبيه هويدي أي أسميهن لكن إلهي أوليه وللرجال درجة منكو وحاوليها درجة أوليها درجة ناس مركو حاوجيها قويسك معها قويس قويسك نقوع ربصة ما يقويسك قال له أبيه إنه قال لي هاي hooyadiina ay leedahay inay hoggaanka taabacdo macnaheedu ma aha in aysan wax xiwaar ka dhaxayn macnaheedu ma aha ay barakallah waa dhamaystiri doonaa markii uu Xasan Mahdi yaa la yiri qaadka soo galo ma santiin waxay raacay Sheekh Xasan Mahdi oo waqtigu aad ugu yiri magaalada Muqdisho aba si toos ugu jira Sheekh Xasan Mahdi ma maqashaa marka ugu horeysa waa ku salaameynaa waxaan jecelnahay inaad barnaamijka aad maaragtay u gudubto oo dooraadaada tiraado insha Allah شيخ حسن بن بشار
ثانيا وأنا أمد الشوينة السويرو وحنا طيب كسوي شرطه شيخ وإنه مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى إن قالته أي سورة بركة إذا غير أحدهم إنت خطير لعنه أنا وحنا سلالنا يوحوي ومدى حد وقصامي ديارنا ومعي ومدى سيراء شروط كرية ولا يكون في الوحدة رمضة قالوا إنه مدى كده أحبحه أما يتوب بيها يوحوي وحكوراته أما يوادي برودي مريكا هم ميرو ومدى يوضك قالوا كبحه ومدى الصومالي كده أحبحه يعني أنا مدى الصومالي هاي شوي أخرى احتمام تعال كلها وضع كانوا مقصده عندنا ترى يقول شخص ثالثا هو أن تذكر لكني أنا مدى المسلمين أنت أنا وحي عزيز وأمنعي أرينا وأمشي لمرض بالبرهي حتى لو أقول علينا ومدى وإن لا يفتح بحق أجيال الصومالي أي رواح وكل جيدة اللي كل قرى فنسوري تدوحي نفسه شيخ حسن ما يمقشى شيخ حسن ما يمقشى صومال الشيخ حسن ما يمقشى تليفون كده كهن الشيخ حسن ما يمقشى الشيخ حسن ما يمقشى الشيخ حسن مثلا يمرون الشيخ حسن تلافنك وكبحي لكن ان شاء الله وكسو علينا ان شاء الله مرة لبعض بنحولين ولا لو سؤال هرنا ويجينا هذا ما كعلنا ما يعني أنا بقولي وداي وسؤال دونا برنامج كحد يعني وقال دونا حلق سؤال وقال دونا أبى نقعد بدارنا وحن ويديني وقتي حوجا وقت بدلنا ونلقى ترتيح بدل بيودي كجرين حرير نفر بدل مركب مهمة وحوي وحصو مالي لا هاي وأنا نقود التشنع هدي دولة النجار كايتاي هدي حزب الإسلام تاي هدي بهالكي تاي حركة أهان وحنو شيئا ما أنت دهنا والله هذا اللي إن أنا وحبك خبي إن أنا قهرت ولا هذا ما كجالية أهان أن إنيشيتيف كي قادرنا وأجاليه كلا ويرنا وعن وضد بتصرنا كبعدنا أيسن إياه وستة سؤال هتهدلنا إنه قريب معركة فلو البا يعني ذاتك أفراد ولوبان وكحنيين معركة إنه معركة وتقنا أنا نقض مهم ده نحو ما أنت إن بدي هالمك يوكي هان بيش الضبع عندي بيش المكبرنامج ونص عندنا دي بقى نكقي دونا وحنا عطنا إن إنسان وحي سؤاله وسؤال دونا هدان أدوختي ونص عمحو شيخ مشير وحنا وحي دونا شيخ عبد الرحيم عيسى عدو وأخفيان كانوا قلاد المحكمة الإسلامية وسن نيروبي كسوق الدوان بإذن الله الكريم فليتفضل شيخ مشير من سؤال بقى حتى سؤال حل في سوشيغا هذا أمها سنتي كل توحيلتها هذا الكيجي أنت الكسر قبيلها وحايمة وحاير شيخ حسن مهدي حياة قبل هذا الكيسي أنت أسبوع شيء يا رب إنا كسر قبيل رنتي وحن كل حجرة مشكلة ده محن كورة هذا أسرة نك درجة السيء وإلهي هو شيء وحن في لها هتي صدق عرمات أي رافته إني سو حبا وحي سوكر إني سو وحي على سماع إني سجر صدق هذا عرمات وحي تاي محن كورة هذا نينكو إنه حاسكي ست وكلنا ولا هذا حوار أما محن كورة هذا وده تشي هذه مركز درجة إلهي التي أيس أهين نستيحه وأيس وده تشي أهين وحنا جوه كذا لها مجر مركز أنا كنا وحنا بدنا هاي كلجر إن قيسك نينك قيسك إنه هو أديك صدق بدنا إن كأنما إن تاي ويا بوليس وكان وحاسمي وحاسنها سمي نلاشنا وحنا ملي قيسك لفتي سكب العبطة قيسك مركز عن حوار كنا لين وعن استيحة كنا لين وده تشي كنا لين wuxuu mid yahay dawladda hadda dhibaatada naga haysato marka ummad qoyskeedu dhisan yahay oo iska dambeeyo oo ku nool yahay wada tashi oo ku nool yahay moogtahay oo naseexa ku nool yahay qoyskaas wuxuu u matalaa waxa moogtahay ka dambeeyo ujeedada qoyska uu soo qaado waa taas marka qoys ummad aan qoyskeedii aan ku dhisnayn mabaadi sax ah oo ku dhisnayn waxaan maleynaa dawladnimada laftigeedana mushkilada haysatay ay ka mid tahay arrinta mushkil oo saddexaad waxay tahay dhaqaalaha فقالها إلهي وحليه سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلهي وحليه سبحانه وتعالى ذاتك هنتذا إسكاله حق أيا إلهي وبجري
dadka maxaan ku rahdaa masaakiinta ama fuqarada ama agoonka waxay rabaa ha ahaadeen oo ilaahay u jeedo subxaanahu wa tacaala sakadii 8 sifo oo ilaahay uu ku waajib yeelay maxaan ku rahdaa waxay kaloo aayadaan ay sheegaysaa in sadaqaad qofka wax haystaa uu sadaqa bixiyo oo qofka ka tabarro yahay uu maaragtay wax taro taas macnaheedu waxa ay tahay qofka maalka ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahu subxaanahu wa tacaala ayaa siiyey asagaana wakiil uga ah marka maalka ilaaha iska leh laakiin adigaa wakiil uga ah in aad xuquuqdiisa aad bixisana waxay tahay shay waajib ah waxaan usoo qaatay walaalayaal saddexdaas mushkiladood waxaan usoo qaatay oo aan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dal saddex arrimood lagala dagaalsan yahanahay in ay dawlad Soomaaliyeed ay dhalato oo ummad dawlad leh oo is haysata oo hadday tahay ciidan ka midaysan tahay hadday tahay dhaqaale ka midaysan tahay haddii ay ka midaysan tahay siyaasadii ummad la jabi kara ma aha marka waxaan is leeyahay saddexda arrimood oo Soomaaliya inay dawlad ay u hana qaato ama central government la helo si kasta ha loogu heshiiyay in ay saddexdaas arrimood muhiim ay tahay in la helo waxyaabaha hadda looga dagaalsan yahay waa saddexda dhaqaalihii waa kala dagaalsan yahay dhaqaalihii Soomaaliya waxa uu galay maxaan ku waraa dawladihii oo jaarka ahaa oo ah cadow soo jireena oo ay ugu horeysay Kenya ay ugu horeysay Ethiopia marka waxay adinkoo og in dal Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed ay gumaystaan oo ilaa hadda dhibaatada ay ku hayaan shucuubta ay gumaystaan aad ogtihiin burburiyana ummadii Soomaaliyeed isugu timid labadii gobol oo ka xorowday Talyaaniga iyo Ingiriiska hadda meesha kala maraysaa labadii gobolna waa u jeednaa marka waxay la tahay meesha kaliya oo kala dagaalama qarannimada Soomaaliya waxa looga dama in awoodiisa dhaqaale iyo siyaasadeed ciidan marna ay soo noqon marka waxaan is leeyahay arrintaas aan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo walaal adinkoo iga raali ah waxaana leeyahay xalka Soomaali waxa uu ku jiraahi in ay gacmaha isqabsadaan oo isku yimaadaan oo wada hadlaan wax aysan goosan oo ummaddu aysan ogeyn cid raacaysaa ma jirto annakiyaa ku kala jabnay annakiyaa hadda ku kala qaybsan marka waxay la tahay qofku inuu intuu asagu kaligii wax suubsado oo uu meel la tagaahay inaysan suurtagal ahayn inuu ummadda Soomaaliyeed uu matalo وانا قرنينا واقع عن كل نهاي ما أنت سومالي لان حقي تاجنتها بوت لان حقي تاجنتها كوفر لفتي كذي على سويستا وعالم كي يقدر يسوي تجي مرنا إلى سنة سومالي واحد ليه رسوا هذا أي صهانا قادم وكذا القد ليها معمول قبل هذا واحد تاعي عاصمة تلك سومالي إلا كسر صبت واحد تاعي سنترال جفرمنت واحد ليه رامي جرت مركب معمول قبل كستاهي عاصمة ويالنا marka hal caasimad oo dalka ka dhaxaysa macnaheedu waxay tahay hal dawlad oo dalka ka dhaxaysa illa waayo sidii loo waayay oo aan u soo celin laanahay shantii qaybood oo Soomaaliya loo kala qaybshay aadan u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الو السلام عليكم ما يمقصد شعب الحين هاي وحي كلمه waxaan ugu xig doonaa insha Allah Sheekh Cabdulxin Ciise Cadow oo magaalada Muqdisho jooga afayeenkii howlgallada maxkamadaha islaamiga ah insha Allah Xasan Mahdi waa soo celin doonaa su'aalaan weydiin doonaa wixii su'aalo ah Cabdulxin markuu hadalkiisa Sheekh Cabdulxin uu dhameeyay ka bacdi aan weydiino muhiimadana waxay tahay inaan dhinac walba aan u baaqno inaan maanta diyaar u nahay tijaariyad ahaan aan rabno halkeen ka geli karnaa nabadda Sheekh Cabdulxin marka ku soo dhaw insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاخوه سلام كتابي الله سبحانه وتعالى يا ما طلع مسكره الله سو نسيي نعمه في بني ادم تبو قالسا او نعمه الايمان كالاسلام نمره فأقول الله سبحانه وتعالى أوصيه عندي وجهني هالكلية. نبدأ بعد برنامج كان وبرنامج آدمي وآه. إخواني سأرى شيء أو شو تبدي شيء أو متكهرة لأن جزاهم الله خير. سبحانه وتعالى خير الله وأرى مريو. وحاول إن شاء الله تعالى بدينا إليه ونقطه فرق نبضة يو إسلامك يو وناك إن شاء الله تعالى أنا شخصيا محكمة إسلامية أو وضعك كجري بيان أفعالها إذا لو نقول إن محكمة
warqabna waxay ahaayeen culamadii Soomaaliyeed markay yimaadeen waa soo dhaweynay inay musaalaxad sameeyaan mujaahidiinta la isu keeno la isfahmo walaalnimo iyo islaamnimo lagu wada noolaado aragtideena sidaas ay ahaayeen welina runtii wax ayadoo ay dhacday duruuf adag oo dagaal ay dhaceen oo dad badan ay ku dhammaadeen oo ay dad badan laga qaxeen oo wadankii maanta ayadoo aad kusoo duulaysan jirin dhibaato fara badan ummadan ay ku dhacday haddana weli fursaddu way taagan tahay in caqliga ilaahay subxaanahu watacaala oo dib loogu soo celiyaan rajeynaynaa in aragti wanaagsan aan insha allahu ka qaadanana waa rajeynaynaa nabadda iyo islaamnimada iyo diinta insha allahu tacaala aan ka wada shaqayno hadafkaasu marka waxaa waaye hadaf la rabo in qof kasta oo muslim ah oo Soomaali ah oo kaalintiisa ka qaato gabadhu kaalinay ku leedahay wiilku kaalinay ku leeyahay dowladdu kaalinay ku leedahay mucaaradku kaalinay ku leeyahay aqoonyahanadu kaalinay ku leeyihiin culimada Soomaaliyeed kaalin weyn oo mugleh ayay ku leeyihiin qof kasta maanta arrintaas ka qaadan karta ama ka geli kartana inay kaalinteeda ka soo baxdo waa arrin laga maarmaan ah annaguna insha allahu tacaala weli maadaama fursad ay muuqato oo la nool yahay oo weli nafta ay nagu jirto inaan nabad iyo walaalnimo iyo islaamnimo wax lagu raadiyo waa mabda ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka yimida maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay wain daa'ifataan min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma dadka muslimiinta hadduu dagaal dhex ilooda yimaado waxaa laga maarmaan ah in dhexdooda la islaaxiyo wasulxu khayr wanaag ayaa ku jira waa khayr fara badan ayuu leeyahay islaaxa daatulbayn dadka muslimiinta ah oo mujaahidiinta ay maanta iskilayaan oo iska hor imaanayaan oo islaynayaan oo istafsiirinayaan waxa waaye waa dhibaato iyo musiibo iyo fidno ummadeena ku dhacday laakiin inta nool oo ilaahay subxaanahu watacaala maanta uu baaqi ka dhigay inay dadaal ku bixiso sidii ummadda loo noolayn lahaa oo la isu keeni lahaa oo la isu fahmi lahaa arrintaas waa arrin aan aada usoo dhaweynayo waana arrin aan ku faraxsanahay waxaana siisinayaa waxaa jira wax kastoo la isku dayo oo wanaag ah dadaa waxay u arkaan oo mar kasta ay yidhaahdaan waxaa la leeyahay ninaa raba inuu diido wanaagga wuxuu leeyahay markaas qolahebelaa iskale qolahebelaa soo aruushay qolahebelaa loogu samaynaa qolahebelaa taana qolahebelaa taana ani barnaamijka hadda meeshaan ka socda inta aan xoogaal u ahay mustackana badna ama 20 daqiiqo taqriiban waxaana is leeyahay walaalaha soo abaabulay jazaahum allahu khayran wanaag ay hadafkoodu yahay iyo islaax iyo nabadka loo gaari lahaa annaguna insha allahu tacaala kaalinta aan ku leenahay nabadaas iyo wanaagaas iyo islaaxintaas inaan qof kasta oo Soomaaliyeed sheekh cabdiraxiim ma maqashaa ان شاء الله تعالى ان نتمنى ان شاء الله تعالى ان نحسننا ان شاء الله تعالى sheekh cabdiraxiim way maqashaa soo maaha waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maanta muhiimadeenu waxay tahay dadkii walaalaha ay shalay wada socday oo wada jiray dabcan marxaladda maanta dhex taagan waa aragnaa dadkuna waa ujeedaa waxaan raadinaynaa waxay tahay sidee dib loogu soo celin karaa adiga waxaan ku weydiinaynaa marka ma kuu muuqataa oo suurtagal xaggiina ma ka tahay inaad al-shabaab iyo xisbul islaam la heshiisaan iyo kooxaha idinka soo horjeeda dhinaciina anigu horta markaan hadlaayo qofku waxaa rabaa mogtahay mas-uuliyadiisa iyo qadarkiisa iyo go-aanka inay qaadi karaan oo maarmaana markuu qofku go-aan dhiibaayo anigu shaksiyan maxkamadaha afhayeenka u ah dowladdu ka tirtiyihiin mawqifka dowladdu ay qabto ayay ma qaataan amba ay qaadanayaan amba ay ku daraysan yihiin waxaana ognaha in mawqifka dowladdu uu yahay in cid kasta oo wax qabanaysa in lala hadlo oo nabad loo furo aniga shaksiyan iyo ragga saaxiibadaya iyo ragga jiilka aan isku ahaynay oo maanta dhibaatadu aynu dhex taalane anigu waxaan u arkaa haddii daacadnimo ay jirto oo diinta shareecada islaamka oo aan sheeganayna ee dhab naga tahay wax aan isku dili karno ama aan isku dhibaatayn karno ma jiraan waxaan leeyahay marka waxaan kala soo jeedinayaa culamada Soomaaliyeed oo
أجلها أو إنسان الله سبحانه وتعالى إلى مهلنا أو مهلنا إلى سوى هو إليه إلى نرجع نقطة مشروعا نرد أو نورد إن نفس أهل الحل والعقد إلى أهل الجنوبيين أو ياشا نرانك أو يعنى شيخ عبد الرحيم كانت هذا وسيله أنا waxaan dabaa inay laga maarmaan ay tahay inaan arrintaas aan wada qaadno waxaan diyaar u ahay kaalinta aniga aadan inaan insha Allah taala kaalintiisa ka soo baxo mashruucan sidii dadka loo islaaxinayo inaan kaalintiisa ka qaato insha Allah taala waxaan isleeyahay ilaahay waxaa dhici karta waa maanta halkan laga furay شيخ عبد الرحيم waqtigoon nagu gaaban waqtigoon nagu gaaban waxaan aad u rajaynaynaa annaga kajaaliyad ahaan haddii go'aamo nabadda ku wajahan ay soo baxaan oo nabad ku saabsan oo aslaax ku saabsan ka dhinaciina waxaan rajaynaynaa inay positive tahay oo ay haad tahay iyadoo su-aasha soo koobaya wax su-aala miyaa jira wax su-aala miyaa jira okay شيخ عبد الرحيم مغشى ان شاء الله wax su'aalo oo maartay jiraan dabcan in sha Allah hada soo koobay khayr baa ku rajayna haduu ilaahay raali ka noqdo wixii warbixinana in sha Allah iyadoo quraalahan ilaahay idinkiisa soo gudbin doona haduu ilaahay raali ka noqdo إن شاء الله أبيك مشروعا برضو مستقبل النقطة عندي الاختصاص أو عندي الماليشة وقعات waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal sheekh وديك عبد الشهاب العلمي مغشى سؤال شيغان waxaan jeclahay inaan balaaday صاحبك انا soo koobto waqtiga oo soo kooban naftiisa bashir uu su'aal ku weydiiyo insha Allah okay waxaan rajaynaynaa in bal insha Allah ay positive noqoto su'aashii jawaabta leh sheekh Cabdiraxiim ma maqashaa صاحبك سوشيال sheekh Bashiir wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su-aasha aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye waxaan la soconnaa inaad joogto Kenya oo dalka Soomaaliya mar hore aad ka soo tagtay macnaheedu ma waxay tahay weli inaad baaqi ku ahayn midowga maxaakiimta afhayeenka aad u ahayd su-aasha kale aan rabay inaan dhinaca u dhigo waxay tahay arrinta culimada oo aad sheegtay culimada waxaan la soconnaa in arrinta subxaan rabaa arrinta culimada waxaad og tahay ciise caddo arrintu in ay tahay culimada in ay la-aayeen authority ah labada dhinac maadaama ay is abaabuleen in labada dhinac aysan ka helin authority inay dhexdhexaadiyaan oo ay la-aayeen authoritygaas aysan ahayn culimadu culimo labada qaybood intii ay isku soo afgarteen ay u dhiibteen hawshooda marka culimada in aan ku celcelinno culimaa dhex gashay miyaysan ahayn arrin maxaan ku rahdaa aanu adeegeyn in si nabada la isugu yimaado waxay adoo raalli ah sheekh Bashiir adaa adigana u mahadsan tahay Cabdiraxiim adna way maqashaa soo maa su-aashaas insha Allah adiga iyo sheekh Bashiir ba iyadii jawaabteedu insha Allah waa idinka cudur daaranaynaa waxaan idinka rabnaa oo kaliya waxa weeye su-aasha iyo jawaabtu inay maxaa la yiraahdaa wixii dhacay waa dhaceen wax walba oo dhacay aanan dib u soo celinin muhiimadda maanta aan leenahay wixii dhacay waa dhaceen wax walba oo jira waa ognahay aniga iyo adiga mowqifkan kala taaganahay ilaahay waa ogyahay haddana waxaan go-aankan u qaadanay inaan ku kala gudubno oo adna hadda meeshaad martay iyo meeshaan anigu maray iyo meesha dadku kala marka sideen uga gudubnaa wixii shalay dhacay oo maanta xal muxuu ku jiraa marka insha Allah su-aashaas jawaabteeda iyo su-aasheeda waa ka cudur daaranaynaa su-aasha labadan ku gudbinaynaa عبد الرحيم ما يمغليسا من أحمد بالي ده waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo wixii dhacayba waa dhaceene maxaad had iyo jeer u tiraahdaan alqaacida baa waddankii joogta oo nala dagaalamaysa arrintaas maad ina ka daysaan waa tii Cabdilaahi Yuusuf oo kale uu oran jiray shimbiraale bay joogaan ma waxaad rabtaan inaad dalka ku soo hogaamisaan shisheeye dhalinyaradeenna hadday khaldan yihiin shacbiga ku jeediya shacbiga cidda khaldan iyo cidda saxa kala garanaya ee dalka ka daaya
محوها قاعدة شوكتا ونلا دقالة مسيكارية أو نعاوية جوجية دكا أرنتاس aad baan labada su'aaloodba u mahadinaynaa Aamino iyo Sheekh Bashiir oo aan jeclahay weliba adiga